madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo maanta si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiskiisa wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa kulan la yeeshay saraakiisha ciidamada xoogga Soomaaliya. Socodka madaxweynaha Soomaaliya oo ku tagay xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxaa ku wehelinayay wasiirka gaashaandhigga, saraakiisha ciidamada xoogga Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sheegay in dawladdu ay awoodeeda isugu geyn doonto dawladda baahida ciidamada oo ay ku jiraan kuwii dhawaan mushaaraadka laga joojiyay. waxaan cadeynayaa haddii wax hakad la geliyo annagu dawlad ahaan waxaan ku dadaalaynaa boqolkiiba 500 waxaan ku dadaalaynaa in hakadkaas la geliyay aysan qofna aysan taaban oo aan mushaar hadday tahay wixii kale oo looga baahan yahay oo agab ah dawladdu wax alla wixii karaankeeda ah inaan keenno. waxaan idiin sheegayaa annaga inaan isku tashanno, annagu inaan wax qabsanno. dadkan ajnabiga ah oo na taageeraya waa ku mahadsan yihiin. marka haddii ay sheegeen dhaliilo annagaana laga rabaa dhaliilahaas inaan saxno. maxaa yeelay qof kuu helan oo diyaar kuu ah inuu gacan ku siiyo waa inaad iska ilaaliso waxyaabaha keeni kara shaki, inaad iska ilaaliso. madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dhaqaalaha ugu badan iyo waqtigiisaba uu ku bixin doono ciidamada si nabad iyo xasilooni dalkani looga saldhigo. tashanayna waana u wada istaageynaa difaaca dalkan. hawlgalladan bilaabanayana insha Allah waa ku guuleysanaynaa, waana isu diyaarinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo. anigana waqtigay inta badan waxaan siinayaa ciidanka. waqtigay inta ugu badan dhaqaalaha inta ugu badan ciidankan siinaynaa oo aan leenahay wax walba dhanka dagaalka, xagga dagaalka ilaa dalkan aan ka xoreynayno oo aan ku soo dabaalayno nabad. Cabdiraxiin Cabdullaahi, Honkabel TV, magaalada Muqdisho.